بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan noo socdaa casharadeenii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay magacyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaan hadda ka hadli doonaa magaca Ilaahay ee Al-Quddus. Al-Quddus waxay culimadu ku fasireen inuu yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala daahir, inuu ka yahay wax kasta oo naqsi keeni kara ama ceeb keeni kara. sida darteed Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa naziih, wa naxnu nusabixu bixamdika wa nuqadisu laka. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu aad iyo aad rukuucdiisa iyo sujuuddiisa u akhrin jiray subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waaruux. nebi ciise calayhi salaam waxyaabaha uu ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodda ku siiyey waxaa ka mid ahayd wa aataynaa ciisa bna maryama albayinaat wa ayadnaahu biruuxi alqudus. culimmadu waxay leeyihiin albayinaat waxaa loola jeedaa cadeymaha iyo awoodda uu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi ciise siiyey. ilaahayna wuxuu ku ayiday wax kasta oo u baahnaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay in nebi ciise uu ku guto hawshiisii nebinimada iyo hawshiisii rasuulnimada. culimmada qaar waxay yidhaahdeen kelmaddan alquduus waa kelmad asalkeeda siryaani ahayd oo qadiish bay ahaan jirtay, oo way ku ducaysan jireen. ereyga qadiish bay ku ducaysan jireen, kabacdina qadiis bay isu bedeshay. laakiin hadda ereyga asalkiisa iyo meeshuu ka yimid muhiimad weyn nooma lahan. qofka muslimka ah marka waxaa la rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu ceeb ka nasahan yahay oo ceeb oo dhan uu ka nasahan yahay, ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu lagu ammaanay, asaguna isku ammaanay inuu yahay quduus. qofka muslimkaana waxaa laga rabaa inuu dhaqankaas iyo dabeecaddeedii uu la yimaado oo uu lahaado, oo uu ka fogaado wax kasta oo keeni kara inuu daahir ka noqon waayo wax kastoo xun. waxaa la rabaa fitradiisa ama abuurkiisa asalka ah inay u ogolaato inuu noqdo qof wanaagsan oo ceebta ka carara, oo ceebta dhibsada, oo naftiisa u diida wax kasta oo naqsi iyo xumaan u keeni kara. waxaana la rabaa qofku inuu iimaan ahaan iyo qof ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xiran yahay, si aysan asagu u noqonin wax liita. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu mushrikiinta ka hadlayay wuxuu dhahay inama almushrikuuna najas, oo loola jeedo qofka muslimka ah inuu jir ahaanna daahir inuu noqdo laga rabo, maskax ahaan iyo mooral ahaanna la rabo inuu daahir u noqdo. waxaa kaloo qofka muslimka laga rabaa inuu daahir u noqdo, jir ahaanna inuu daahir u noqdo. see ugu noqonaysaa? weysaqaadka ka mid ah. salaada aad weysaysanayso waxay ku keenaysaa jirkaaga inuu daahir noqdo. waxaa kaloo ka mid a inaad ruuxda laftigeeda daahir ka dhigto, oo waxyaabaha ruuxda daahiriya waxaa ka mid ah salaada, oo qofka ruuxdiisa iyo calooshiisa hoose iyo maskaxdiisa u daahirinaya haddii uu salaada si wanaagsan oo sidii saxda ahayd uu tukado. waxaana ka garanaysaa ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii wa aqim asalaata lidikrii. marka salaadu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka muslimka ah ruuxdiisana toosiya, jirkuna weysaqaadka laftigiisa wuu ku toosaa. waxaa kaloo qofka muslimka laga rabaa inuu naftiisa daahiriyo oo qof ahaan uu isu daahiriyo. waxaa ka mid a sidaa isu daahirinaysa waa inaad zakada la baxdo. zakaduna waa laba nooc. midna waa midda jirka laga bixiyo, xoolaha laga bixiyo. midna waa mid aad qofnimadaada iyo shakhsiyadaada aad ka bixinayso. shakhsiyadaada seebaa zaka uga bixinaysaa? inaad xumaantana ka fogaato, akhlaaq fiicanna yeelato, jirkaagana aad zakada ka bixiso, adiguna aad u ekaato qof mar walba xaqa lagu leeyahay iska bixinayo oo gudaya. waxaa kaloo la rabaa inaad daahiriso maalkaaga, oo maalkaaga see ku daahirinaysaa? xuquuqda ilaahay ku leeyahay maalkaaga waa inaad guddo, oo laba ay ugu muhiimsan yihiin. midda koowaadna ay tahay zakada lagu leeyahay maalkaaga, oo sanad walba la rabo inaad zakaatulmaalka iska bixiso. midda labaadoo maalkaaga la rabo inaad ku daahirisana waa sadaqada aad la baxaysid. nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi asadaqatu tudfiu ghadaba rabbi. yacni sadaqadu waxyaabaha ay tarto waxaa ka mid a in ilaahi subxaana wa tacaala caradiisa kaa fogeyso. waxyaabaha ay sadaqada tarto waxaa ka mid a xataa inay raximka wanaajiso oo ehelkaaga ay wanaajiso. adiga laga yaaba inay cimriga kuu barakayso, inta aan nooshahayna ay wax kuu tarto. marka xoolaha aad haysatana waxaa la rabaa inaad daahiriso. waxaa kaloo la rabaa naftaada si guud inaad uga daahiriso wax kasta oo shubho ah ama shahwo ah, dareen iyo shaki ama caqiido xumo ama akhlaaq xumo, labadabana naftaada inaad ka daahirisaa si joogta ah lagaaga rabaa. waxaa kaloo lagaa rabaa inaad ku dayato ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu naftiisa ugu ammaanay in naftiisu ay daahir tahay, oo ay wax walba oo xumaana daahir ka tahay. adigana waxaa la rabaa inaad meeshaa cuskato ood ilaahay subxaana wa tacaala subax iyo galabba qalbigaaga iyo maskaxdaada
وكجرو. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وسبح بالعشي والإبكار يسبحون الليل والنهار. تسبيح ذات فرد بدن وحي كو كينيسا inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xusuusan tahay oo maskaxdaada ay ku jirayso. ereyga marka alquduus ereyada tafsiirada loo sameeyay waxyaabaha lagu fasiray waxaa ka mid ah inay keento barako, wax kasta ay ku barakoobaan, inay keento wax la dhaho fadli ama dheeraad inaad mar walba ku hesho. waxaa kaloo jira dhulka laftigiisa meelo muqadas ah, udkhulu al-ardh al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum, oo ilaahay uu sharfay oo ilaahay wax walba uu ka ilaaliyay. waxaa ka mid ah Makka meesha xaramka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabo fara badan oo xuquuqana la siiyey, waxyaabo fara badan oo magaalooyinka loo ogol yahay ayada loo diiday si loo ilaaliyo muqadasnimadeeda ama wax kastoo xumaana in laga fogeeyo loogu talagalay. sidaa darteed qofka muslimka waxaa la rabaa naftiisa inuu dahiro, jirkiisa dahiro, maskaxdiisana uu dahiro si u gaaro meel ay naftiisu ceebka saliin u noqon karto in allaale inta uu ku dadaali karo. wallahu tacaala